madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo dhaniyaalka iyo suranayeen taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo taliyaha ciidanka booliiska gobolka Shabeellada Hoose iyo kulan dardaaran iyo laweeladeen cutub iyo ku tirsan ciidanka booliiska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo la kawadantay dhawaan iyo ku howlgalan gobolka Shabeellaha Hoose kureed markii muddo bilood tababar iyo ka qaadeen dugsiga tababarka ciidanka booliiska General Kaahiye ee magaalada Muqdisho mayna muddada tababarka iyo qaadayeen iyo ka baradayeen cashar iyo kumitayeen heerka ciidanka booliiska heerka nabadgelyada wadooyinka heerka ciqaabta ciidamada qalabka wadiyo shuruuc kale oo lagu maarmaan ee sida ku horseedo ku falalka argagixisada iyo ka dhibaateeyeen shacabka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalka Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo warbaahinta dowladda koonfur galbeed la hadalaya sheegay intii ciidanku la kawadantay sidoo ka dhow iyo ku howlgalan gobolka Shabeellaha Hoose waniyo dardargeliyeen dhibaatada argagixisada al-shabaab iyo ka hayta shacabka Soomaaliyeed maynus amaanay tababarka iyo qaadadeen ciidanka intii iyo ay ka filan waniyo ku shaqeeyo doonaan gobolka lan tababari ee Shabeellaha Hoose dugsiga tababarka ee General Kaahiye oo soo qaatay tababar adigu naftaada aad goobjoog ahayd oo u soo xirtay iyagoo gaardinaya iyagoo wax bartay daada waxaan u maleynayaa usbuuc 10 maalmood meelahaas hadda hal ku jireen waxayna sugayeen in la howlgeliyo waxaan filayaa ciidanka marka tababarku u soo dhamaado oo la yiraahdo tababarkii waa la idin xiray waa marka la yiraahdo waa baramoosteen marka ciidankan waa ciidan soo baramoosay waa ciidan ila akhlaaqdooda ciidanka haya saraakiisha gacanta ku haysta isku mid noqdeen kulliyadda markay ku jireen iyo hadeer oo ay joogaan muxuu ahaa xarunta gaadiidka oo aan tababar kale meesha ku furnay maadaama iyagu soo dhamaadeen adayna ku sugayeen waxyaabo yar yar oo ay sugayeenna adaa u iftiimin doona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo khudbad dhaniyo badan taabadaas uu sanjeediyay ciidanka iyo kala dardaarminta iyo ku shaqeeyaan nabadgelyada gobolka Shabeellaha Hoose si bulshada gobolka iyo helan xasilooni iyo nabad waarta maynu soo tilmaamay intii sidan ka dhow qalab iyo minshaaraad iyo hela doonaan salan la xisaabtama shaqada iyo hay'an dowladda maynu san ka baaqayntii ku fogaadaan qabyaaladii iyo walyaabo la halmaalow waa say ila tahay waa markii saddexaad oo idin imaado markii ugu horeysay waxay ahayd waa markii tababarka la idin furay markii labaadna waxay ahayd markii tababarka la xiray maantana waa markii saddexaad waa markii howlihiina shaqadiina la idin fasaxay lahayd howlgalka aad lahaydeen waay waxa ogaanaysaan waxaa la inka leeyahay hami weyn priority-ga iyo muhiimadda aad leedihiin waxaa ku garanaysaan ciidan koonfur galbeed uu leeyahay intaan kaliix maaha ciidamo badan oo boliisa iyo military iyo nabad sugida iyo daraawiisha intaba ay leeyihiin ciidan aan 3 jeer ku noqday adinka maahana ma jiro marka waxaa ogaanaysaan ahmiyadda iyo muhiimadda aad u leedihiin dadka reer koonfur galbeed iyo annagaba sida aan maxay ahayd ahmiyadda aan noo leedihiin baa ku garanaysaan inaad muhiim noo tihiin waa dadaasheen shaqadiinina waa ka soo baxdeen hadduu ilaahay yidhaaho waxaan samaynaynaa waxaa la diyaariyey howlihiinni kaloo idin dhinnaa dhan dhammaystirkooda waxaa laydiin samaynayaa taliyaalkaa idiin imaanayo iyo wasiirka amniga nambarkii baa laydin siinayaa markii laydin siiyo hadduu ilaahay yidhaaho qalabkiinnina waa laydin siinayaa fartaa laydinka saaraya qorshe kale oo istaraatiijiyad oo hadda aan meediya laga sheegaynin oo deegaanadiinni ahna sidii aad ku tegi lahaydeenna waa laydin diyaariyey ayadana saasaa loo maraaya haddayn ma dhahayo laakiin waa la hayaa ayadana jidkeedii waa maraysaan xarumihiinni aad tegaysaan hadday bishaan dhammaato insha allaahu janaayo kowdeeda nin walba nambarkiisa waa la hayaa mishaarkii xaqaa u lahaydeen oo soo shaqaysateenna waa helaysaan fartaa laydinka saaraya nin walbana xaruntiisii iyo deegaankiisii baa la geynayaa waa soo dadaasheen waa soo tababarateen shaqo fiican baa soo qabateen aad iyo aadaa laydiin sugayaa dulqaadka iyo samirka muhiim waaye waxaan aad uga xumaaday daraad
anoo joogo Baydhabo yaa taliyaha isoo wacay wuxuu yiri nimankii maxay ahaydee waxay u soo baxeen banaanka askariga aniga maalintii muddo 8 bilooda ciidan tababar noo dhameeyay baa noo jooga Baydhabo oo akhlaaqdooda leh oo tababar ka dhameystay oo sugay operation sidiinoo kale ciidan dawladeed baa tihiin ciidan qaran baa tihiin waxaa sugaysaan howlgalkii iyo operationkii iyo shaqadii la idin diri lahaa tababarkii baa dhamaysateen inspection wax la yiraahaa jiro yaa maraysaan processkiina baa idin socdo dawladda koonfur galbeed oo dhan baa idin taagan dawladda federaalka idin taagan waxaa la rabaa inaanan la dhaqaaqin la dulqaato ciidannimadii iyo tababarkii la soo siiyay aad ku dulqaadataan adkaysataan hadduu ilaahay maya dhihin waxaan jecelnahay insha Allah bishan kowdeeda nin walbaba xaruntiisa asaga oo jooga inuu mushaarkiisana meesha ugu soo dhaco waajibaadkiisana meeshiisa uu ku guto qaybihii la idin kugu tala galayna aad martaan insha Allah waxaan idin imaanay isbuucan taliyaha qaybta guud taliyaha qaybta shabeellada hoose iyo wasiirka amniga taliyaha booliiskana kulay wuu soo raacayaa nin walba magaciisa nambarkiisa telefonkiisa processka ciidankii baa la marinayaa iyo maraya asagana hawshaas markaa dhamaysaan sidii kale oo hawsha ku bixi lahaydeen qorshihiina lagu qaban lahaa marka taas waxay noqonaysaa wax annaga noo gooni ah oo aanan hoos isugu sheegnay noqonaysaa waxa laaliye waxa qabtaan waa linka warqabaa duruufta ku jirtiin waa la og yahay dalka iyo dadkay u baahnaayaan baa tihiin samra dulqaata taliyaalkiina ka amar qaata habsan yuusan jirin aadan uga xumahay qof baa habsana in la yiraahdo haddii waxaa waaye nin inta soo tababartay 6 bilood 10 beri samri way adkaysan waay ma 100 sano ciidan ku adkaysanaya kuma adkaysanaya ciidannimo adkaysi ma jiraysa markaas waxaa la rabaa ninka intaas soo tababaraneyseen waqti soo galiseen waxa idin haray waa maalin iyo 2 maalin iyo 3 maalin intaas hadaa adkaysan weyseen see xaruntiin ugu adkaysanaysaan aad u mahadsantiin cutubyadan ku tirsan ciidanka booliiska gaarka dawlad goboleedka koonfur galbeed ee la kawadantii iyo ku howlgalan gobolka shabeellada hoose ma iyo qayb qaadada doonana xaqiijinta ammaanka gobolka oo yahay wadan ciidanka xoog dalka gaar ahaan ciidanka commandoska danabs maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab lanku sifay guutaan dalka Faisal Maxamed Isa warbaahinta dawladda koonfur galbeed magaalada Muqdisho.